markasta oo ka hadlayno maalqabeennada adduunka ama qofka ugu hadansan meeraheena magacyada Jeff Bezos, Bill Gates ayaa durbadiiba maskaxdaada ku soo dhacaya marka aan fiirino majalada Forbes iyo jaraa'idiyada ganacsiga ka faalooda. Jeff Bezos ayaa ah qofka ugu hadansan adduunka. sidoo kale markasta oo aad fiirisid liiska bilyaneerada caalamka sida majalada Forbes waxaan arkaynaa magacyo sida Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett, Mark Zuckerberg liis ay ku tixan yihiin bilyaneerada caalamka. laakiin weli ma is weydiisay maxaa liiskan looga waayay magacyada shakhsiyaadka ka soo jeeda boqortooyada sida mashaayikhda kuwa carabta, dhaxal sugaha Saudi Arabia Mohammed bin Salman, wadamada galbeedka qaaradda Aasiya sida Kuwait, Saudi Arabia, Qatar iyo wixii la mid ah waa wadamada ugu hodansan caalamka. hogaamiyaashooda iyo mashaayikhda hogaamisa wadamadaas waxay ku nool yihiin raaxo ka badan midda Bill Gates uu ku nool yahay, waxaana huban Forbes. ugu horreyn waxaynu ka hadli doonaa cidda samaysa liiska bilyaneerada caalamka. waxaa jira majalado fara badan oo ka faalooda dhaqaalaha iyo bilyaneerada shakhsiyaadka caalamka, waxaana ugu caansan majalada Forbes, Business Insider, Bloomberg iyo kuwa kale oo badan. inkastoo dhammaan jaraa'idyadan isku mid yihiin, laakiin Forbes ayaa ah midda la isku haleyn karo marka la barbar dhigo kuwa la midka ah. haddaba sidee ayay Forbes u ururisaa xogta bilyaneerada caalamka? Carey Dowland oo ah mid ka mid ah tafatirayaasha ugu sareeya majalada Forbes ayaa sharaxday sida ay u sameeyaan xogta bilyaneerada caalamka. inta badan ragga ganacsatada ah waa ay la socdaan, waa ayna la shaqeeyaan majalada Forbes. Forbes waxa ay ka kooban tahay tiim gaaraya 50 wariye kuwaas oo jaangooya tida shakhsiyaadka caalamka. marka koowaad waxa ay beegsadaan dadka ay xogtooda hayaan ayna doonayaan in ay liiskooda u ka soo muuqdo. kadibna waxa ay wareysi la yeeshaan qaar ka mid ah dadka ka jiro maalgelin la sameeyay. laakiin Forbes mararka qaar waxa ay ku dhacdaa qaladaad maadaama aysan ogaan karin xogta saxda ah ama qiimaha go'an ee qofka uu haysto. sanadadii ay shaqeynaysay Forbes waxaa jiray qaadaad dhowr ah oo ay samaysay, laakiin weli waa mid la isku haleyn karo marka la barbar dhigo majaladaha la midka ah ee ka faalooda dhaqaalaha shakhsiga. laakiin maxaa Forbes looga waayay qoysaska boqortooyada sida Saudi Arabia iyo wadamada la midka ah ee ka soo jeeda galbeedka qaaradda Aasiya? ugu horreyn Forbes waxa u badan dad iskood u shaqeysta kuwaas oo dhaqaalahoodu uu ka badan yahay 1 bilyan. laakiin waxaa jira magacyo badan oo ka soo muuqday bogga hore ee Forbes kuwaas oo aan shaqaysan lacagta ay haystaan. tusaale ahaan Mukesh Ambani oo ka soo jeeda qoys hore qani u ahaa, waa sida ay Forbes u shaqayso. tusaalaha labaad, haddii uu jiro nin haysta 10 bilyan oo dollar kuna jira bogga hore ee Forbes uuna dhalay 5 wiil, mid kastana uu u qaybiyo lacagtiisa, waxa uu helayaa 2 bilyan. laakiin wiilka haysta 2 bilyan kama soo muuqan doono liiska Forbes. laakiin wiilkaas haddii uu ganacsi galo 2 bilyanna ay gaarto 20 bilyan, waxa uu ka soo muuqanayaa liiska Forbes. taasina waa sababta dhaxal sugaha Saudi Arabia Mohammed bin Salman uu uga soo muuqan waayay liiska Forbes. arrinta kale ee muhiimka ah waxa ay tahay in aan la ogaan karin ama ay adag tahay in la ogaado lacagta saxda ah ee haystaan dhaxal sugayaasha ka soo jeeda wadamada galbeedka qaaradda Aasiya. 2007 Khalid bin Talal waxa uu ku jiray liiska Forbes, dhaqaalihiisuna waxa uu ahaa 18 bilyan. laakiin markii la soo daabacay liiska, Khalid bin Talal waxa uu sheegay in Forbes baahisay xog qalad ah ayna lacagtiisa 10 laab ka badan tahay lacagta ay sheegtay. wixii markaas ka dambeeyay Forbes waxay go'aan ka gaartay inaysan ku soo darin liiska bilyaneerada shakhsiyaadka boqortooyada iyo wadamada galbeedka qaaradda Aasiya. markii aan u nimaano qoyska boqortooyada Ingiriiska ayagana kama soo muuqdaan majalada Forbes, sababtuna waxa ay tahay lacagta iyo dahabka yaala boqortooyada waxa iska leh qof kasta oo ka tirsan boqortooyada. taasina waa sababta aan loogu arkin qoyska boqortooyada Ingiriiska liiska Forbes ay daabacdo.